وهاجا ميديا أيدي www قرف إسلاش يجوريك دوت سمعنا قرر أنا مقالة ذي يا برنامج ذي هاجا ميديا كذا فضلا سبسكرايب قاعد ميديك تعدل على كويستو بدي بدي سبسكرايب كله حتى فرتنا حتى مشغول كاتاي فريرة وساعد هذا ما كاكله سمعنا قرر waxaynu bilaabaynaa waa dalka TV barnaamij aynu bixinay dalka dhowr dadkana dhageyso halkan aad arkaysaan waa ex baarlamaan horta aan idinka hormariyo cimiladu aad bay u kulushahay waxaanad moodaa maanta inay tahay maalmihii aan horay loo arag waayahay meeshan aad arkaysaan waxa la yiraahdaa waa ex baarlamaan waa sida aad arkaysaan waa dhulkii uu isticmaali jiray baarlamaankii dawladdii Maxamed Siyaad Barre ويسان هورين كل شيء برنامج كان ودلك TV وحلا يلاهدا دلك دور دتكنا دقيسو عملادو آد بيكونوا شاي ساعد وحيا باريسا 5 ساعة يبد أما اللي 12 كي أو دمان شني يلا 20 دقيقة سيدا دركتان مركا داوديال دقيستيال و أكيس برلمان حقن كله وحا يجي حاجة داوديال دقيستيال وجيدها يريري إنك حجان وماشي لورين تري دلتيكا دحصون iyadana bal hadda waynu eegaynaa idamka ilaahay waa dal shirka dahsoon waayahay waa barnaamijkani dalka dhowr dadkana dhageyso waayahay waad soo raaci kartaan waa Yaasiin Cismaan iskuulkani isaguna waa Yaasiin Cismaan iskuulkii la oranayay Yaasiin Cismaan Allahumma salli ala sayidina Muhammad guriga aad aragto waa gurigii Jirde Xuseen ee ka horjeeday silsilad weyne bangigii la oran jiray ilaahay amarkii waayahay aynu hadda korno jaranjarada la yiraahdo dal shirka dahsoon bal hadayna keena hadda war bal hadda soo baxa dhakaweyno bal soo raacada waayahay daawadayaal dhageystayaal sidaad aragtaan waa taaladii la oranayay dal shirka dahsoon ilaahay amarkii oo ku taala degmada Boondheere waayahay waad soo raaci kartaan daawadayaal dhageystayaal waayahay waad soo raaci kartaan waa taaladii la oran jiray dal shirka dahsoon waayahay sidaad aragtaan waayahay waa taalada dal shirka dahsoon waayahay dad dhalinyaro hoos fadhida barnaamijka waxa la yiraahdaa dalka dhowr dadkana dhageyso waayahay dadka laftiisa waan dhageysanaa assalaamu calaykum maxaa la sheegay ما في عندي وايهي ذلك قاكي كاميرا كعريان أو يا دم بجلاي روح الدم بجلا كاميرا كعرّ سماها وايهي مقعدي محاها هذيك مقعدي محاها حسين وحن كوري صحالي حاجات ورد حالي حاجات هويتي تقبل بوندير شوفتي دتكم هاي هذا الحين دتكم عاصمة دي النبض وايهي مظاهرات كل شيء يوحي من الاسكداي الله يعلم والله ورّي أنا أقول حاجة هذا كمان أقول بوجي وايهي إلهي أمركي وايهي السلام عليكم حد شكتين هيا سويس كمان في عندي الشيخ مقعدي محاها سامع بالقيله حلا حاجات مقالات مصوغه هيتي maxaa ka galay buu dhaka weyne waayahay day ilaahay amarkii waxaan ku yiri barnaamijka waxa la yiraahdaa dalka dhowr dadkana dhageyso ummadii Soomaaliyeed baa ku daawanaysa hal eray ma oranaysaa lacag siiya imisa ku siiya ma waqtiga galo warkan ka gataa waayahay waxaan ku yiri markay laga gatabayo war ma dhiibaysid waan u dhiibaa shaqado kale ma adu wariga waa gadanaysa mugti هيا ما في قدرنا يا ما يعني قاعد وديه هنا اللي يوريه ما هي سما ذكر وديه هنا ما مقصي ما مقال وياه حلا حدك من هذا حلا حد كاغل وايد وياه ما كاغل بكل ياه وياه دك وينه وياه يا نور هيا صباح هيا حاجه رسول وياه دلك دور دد كنا دغيسو برنامج شو هلا يا دلك دور دد كنا دغيسو وياه السلام عليكم دليرو وابوانديه هنا دليرو maxaa la sheegay waa abwaandhiigana waad wada garanaysaan
إلهي مهدي إلهي بمهد إسكالي برنامج شو حل يا ضل كدور ضد كنا دقيس قبلها إلى كاميرا دقيقة داير ترجع وقفي دم بياد قشي دم بياد كقشي ضل كي ضلك والله واضي كم كي دم بيجي كاميرا كعرة لا ولي مكان لا وكان الرجع هذا بقى وحنكون شيء يا وحنكون شيء يا برنامج شو حل يا ضل كدور ضد كنا دقيسو سو ما قرني أنا كون فريساننا صار ليس كمان فينا ليش هو حل يجي هذا سو ما عندك مدي بوندير إله هو ذا عقلك مقعدي محوها محمد ولي عدو وجمعالي قبوبي لك ويلي واجهي طيب حالتك مدادي ويتي مدان وريق لي بتكوهتي وان قرتي واجهي محمد dadku maxay hadal hayeen oo laga sheekaysanayay maanta iyo muqdisho iyo barnaamijkii dalka dhowr dad kala dhageyso oo isku rarana iyo agoondhiirade iyo dalka TV ba kula jooga fiican ana aad iyo aad baan u soo dhaweynaa wala xiliyoon dhaka weyne saweeye annagu dalkaan u shaqaynaa dhalinyaro kuwa kaamirada ka yaacaya ma cidaan dilay maya saweeye ummadii Soomaaliyeed oo dhan baa ila daawanaysa waxaan ku yiri maxaa rajadu maxay tahay dadku waxba la hadal hayay waxba la sheegayay rajada aad qabtay maxamed maxay tahay rajada aan qabo waxa waaye wadanka inuu ilaahay colaadda inaga joojiyo rajada labaad inuu madaxweynaha waxyaabaha nolosha ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan yihiin inuu arko marka waxaad leedahay fariin baaban u hayaa dawladdanba fariintaba u wadaaba waa villa Soomaaliya alla ilaahay ku sii daa waa lagu maqlayaa maanta jaanis baad maanta haysataa jaaniska aan haystaa soo dhaweeyaa haye dadweynahana soo dhaweeyaa waa la soo dhaweynaya dadweynahana soo dhaweeyaa wuu soo dhaweeyay ku dhageysan madaxweynuhu intii u sareysana soo dhaweeyaa nacam horta qof sarki karto ma jirto waan gartay qof magaceedu waxay ka tahay inaad taqaana ma jirto waan gartay noola laakiin wadana waan gartay noole yaan wadanahay aan wadanahay haye hadda intii nool dadka ilaahay waa kala sareysay waa run فرحني ما سنالي فرحنا ما سن لك وين اللي فرح وكوي اللي فرت هذا كوباد ما بتقاني وريا اللي هي اللي هي وانتي فرت هذا كوباد ما بتقاني هي وانا كوكو ذيالي هي ما قرأت وان قرتي حتى الله هاي انت قلوا عنه هايستوس وان قرتي ودنك وانا قبدنيا وانا قبدنيا dadkuna waa u baahan yahay wadanka waarun noloshana waa loo wada baahan yahay fariinta waa lugeynaa ilaahay amarkii dawladda waxaan leenahay dadkii Soomaaliya garan saasay leeyihiin way hagaajin dawladdu horta bidaan maxamed ku sheegaya horta dalku burbur buu ka soo baxay shaqada taala waa shaqo weyn baleeg hadda صح waxay Soomaalida ku mahmaadaan habar fadhida la dilna fudud صح Soomaalida qaar baa si dhibir moodaya hadii maanta maxamed madaxweyne laga dhigo meel wax kaga hagaagta garan maysa aada u aqaana soddon bas sano dadka dagaalamayay indhaha faraha la iska gelinay jaamacadda indhacday soo la wada dhiganay fulaygu wax ma qabto fulaygu wax ma qabto Soomaad garan dawladdan waxaan leenahay ayagana sabura oo adkaysta waa la idin caay waa la idin ku mudaaharaadi waa la idin ku dhagax tuuri isxajiya haday wax qabo waayaan waa lagu mudaaharaadaya waa la dhagaxayn isbedel كناعنا ويعونيسا كناع ما هنا ود أيقو دم معنا نرش وضع بينك بعض واحد صدق محمد بعض واحد صدق ورنا اللي يروان بسلامين نادي لما كنا كاميرا ذاك عرّي يسيجو حلاي سما ذكرنا بل لما كجيت كافديان عنو تجنا هذا سما ذكرنا ورنا ذكر كاميرا ذاك عرّي سان وروا برنامج شاني ذلك لو ذات كنا نجيسو سما ذكرنا السلام عليكم ورنا اللي كقلين معي وربا ومدة الصومالية محل دونية ورك ما أنت يديك على ذيك الربا داركم ماشي مرة وادوكتين ما هاي اللغة مقولين يحردين هام سنة تلم حد يبني سان حبذنا ويدا عسايلهم ماذا حلو قدو داي تلم حد يبني سان تلا دي بتمات الصومالية ولا بكون جيسان ثاني سبعة يستا مدحوينه الشباب كبر مدحوينه الشباب هالرعديو وكان فكر كي سوان مقشان سوما ذكر يا كلام فكر ديدنيا برنامج كو وحلي waa dalka TV waxa la yiraahdaa eeg hadda dadka waxa la dalka dhowr dadka dhageyso ummadda Soomaaliyeed shakhsi waliba xaq wuxuu leeyahay in la dhageysto waxa uu doonayo ummadda u sheego ninka hadda fakarkiisa buu sheegay yaa fakar kala sheeganaya hatta ardadii jacaylku hayo waan soo dhaweynayna haduu ilaa gabadha aan jeclaaba ay diiday hal igala hadlo waan kala hadlaynaa Soomaad garan waa dhaka weyne waa dhalinyarada Soomaad garan maxaad ku darsanaysaa سماذا قرني محاك يا كلا فكر ديبانية هيا وايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايه حقنا صومني هيا إن صار على العياء هيا
ويا دليرو وان سلام يا كل في وياهي هذا سيدا داود يا دغيستيال arkaysaan waa hotel Jubba oo aad wada garanaysaan ummadda Soomaaliyeed caan buu ka yahay hotelkan hotel Jubba la yiraahdo وياهي waa hotelkii caalamiga ahaa wasaaradii warfaafin aan gaadhay dalxiiska ee Soomaaliya ayaa lahaan jirtay وياهي bal hadda waxaynu eegaynaa hotelka ayaynu eegaynaa dhafoorka uu leeyahay iyo sida uu maanta ku sugan yahay iyo sida uu ahaa dawladii Maxamed Siyaad Barre وياهي وهوتيل Jubba وما كوجو دبيسي dhafoorkiisa bal ka waran ilaahay baan kugu dhaarshay markaad maanta eegto waa hotel Jubba oo Soomaaliya oo dhan ay wada taqaanay wasaaradii dalxiiska ayaa maamuli jirtay hotel Jubba waa la wada garanayaa waa kan maanta dhafoorkiisa waad aragtaan ummadda Soomaaliyeed hantida ummadda Soomaaliyeed buu kamid ahaa maantana waa u jeedaan barnaamijkeena waxa la yiraahdaa dalka dhowr dadkana dhageyso toddobaadkiiba hal mar ayaad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee dalka TV وياهي سان hore idinku sheegay waa hotelkii caalamiga ahaa ee la oran jiray hotel Jubba waa hotelkii ay iska lahaan jirtay wasaaradii dalxiiska ee Soomaaliya waa dawladii Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka kooban yahay ilaa maxaan idhaahdaa dhowr dabaq وياهي waa 1 2 3 4 5 waa ilaa 6 dabaq ayuu ka kooban yahay وياهي waa hotel Jubba oo wada garanaysaan waxa iska lahayd wasaaradii dalxiiska ee Soomaaliya waa dawladii Maxamed Siyaad Barre وياهي وبرنامجكني dalka dhowr dadkana dhageyso وياهي bal wixii dad ah ee aanu aragno ee mid iyo laba ah insha Allah waynu eegi doonaa وياهي waxa ka jira imika hoostiisa buushash iyo makhaayado yaryar oo dad dalay ah ay iskaga ganacsanayaan وياهي bal ilaa afka horeynu soconaynaa dalka TV وياهي وياهي وهوتيل Jubba oo wada garanaysaan waa hotelkii caalamiga ahaa ee iska lahayd wasaaradii dalxiiska ee Soomaaliya وياهي hotel Jubba وياهي maanta sida uu ku sugan yahay ayaa la doonayaa ummadda Soomaaliyeed inay eegto bal hadii la dayac tiri karo iyo hadii la duminayaba bal waa hanti Soomaaliyeed waana la wada og yahay marka waxaan eegaynaa waa dalxiiska ee Soomaaliya وياهي marka waxa ummadda Soomaaliyeed la weydiinayaa in gabigiisaba dhulka la dhigayo hotelku sida uu dhan yahay iyo in la dayac tiri karayo ayaa la is weydiinayaa marka dadka qaar baa waxay u badinayaan hotelka totally ama dhamaantiba inaan dayac tiri lahayn laakiin uu baahan yahay in dhulka la dhigo balse dadka qaarna waxay leeyihiin waxa laga tashanayaa dawladda Talyaaniga aan idhaahday dawladda Shiinaha oo waagiba dhistay ayaa loo yeerayaa injineer kamid ah ka bacdi iyaga waxay go'aaminayaan in hotelka dhulka la dhigo iyo in la dayac tiri karo labadaas la isweydiin doona ilaahay idamkii وياهي وبرنامجكني dalka dhowr dadkana dhageyso oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee dalka TV hadda waxaan taaganahay geesta bariga ee hotel Jubba oo la wada garanayo waa hotelkii caalamiga ahaa ee iska lahayd wasaaradii dalxiiska ee Soomaaliya وياهي hotelkan marka waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waxay ka tashanayaan bal sida uu dhayahay in la dumiyo oo dhulka la dhigo iyo in la dayac tiri karo ilaahay idamkii gurigan aad aragtaan ilaahay amarkii waa sartii la oran jiray Manabolio sartani waxay u magac bixisay xaafadan waxa la yiraahdaa Manabolio waxa lahaan jirtay wasaaradii tarqa aan idhaahdee wakaaladii tarqa iyo sigaarka وياهي waa Manabolio hadda iskuul ayay laga dhigay oo dayactir baa lagu sameeyay laakiin xaqiiqatan marka la yiraahdo waa sartii la oran jiray Manabolio waxayna ahayd hanti guud oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhaxaysa hadda laakiin dabcan waxa gaar ugu shaqaysta qolyaha iskuul ayayna ka dhigteen alla ilaahay sar sigaarka lagu iibin jiray hadii laga dhigo goob waxbarasho waa talaabo hore loo qaaday وياهي daawadayaal dhageystayaal waa barnaamijkeeni dalka dhowr dadkana dhageyso hadda waxaan taaganahay bartii albaabkii laga gali jiray waad aragtaan xabadaha ku yaala waa dagaaladii sokeeye waxa xabada ku yaala waad aragtaan waxa ahayd meelihii lagu dhufays qaatay daawadayaal dhageystayaal waa barnaamijkeeni dalka dhowr dadkana dhageyso war dhafoor buu ku yaala albaabkani wuxuu ku siinayaa warbixin taama
wuxuuna kaaga sheekaynayaa dagaaladii sokeeye ee ka dhacay meeshan waa ilaa korka kore ilaa hoosta waa yahay alla ilaahay waxa fiicnaan lahayd haddii guriga intiisii kala la dayactiray albaabkan caloolxumadiisa isagana in la bedelo way fiicnaan lahayd waa haga media oo idin leh www.iga-wareeg.somada garan aniga muuqaaladayda iyo barnaamijyadayda haga media aad ka heltahay fadlan subscribe gacanta midigta haddaad alaab ku haysto bidixda badda subscribe ku dheh hadday fartan xataa mashquul kaa tahay faryarada uun saadhadaada maxaa kaa galay somada garan